Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Gujiska waa gaadiid u eg doonta laakiin u samaysan qaab suuragelinaya in doontaasi quusto badda gunteeda isla markaana dhex maquurato biyaha dhexdooda iyo ka sii hoosaba. Waxaana loo adeegsadaa gujiska laba arrimood. Midda koowaad waa dagaalka, midda xigtana waa cilmi-baaris. Waxaana gujiska dhanka dagaalka loo adeegsaday intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. waxaana ka mid ah dawladihii isticmaalay gujiska Faransiiska, Ingiriiska, Mareykanka iyo Ruushka. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, waxay dawladaha waaweyn gujisada ku rakibeen hubka nukleerka. Dhanka kale gujiska waxaa loo adeegsadaa cilmi-baaris, ayadoo darwal la'aan gujiska loo dirayo badda gunteeda isla markaana lagu rakibayo kaamirooyin lagana soconayo xaruntii laga soo diray gujiska. Wuxuuna gujiska u fududeeyay cilmi-baarayaasha inay wax badan oo hore ugu qarsoonaa ogaadaan, taa oo keentay in la sii hormariyo gujiska. Wuxuu kaloo gujiska sahlay isla markaana kaalin mug ka qaatay baadigoobidda wax badda gunteeda ku lumay, oo wuxuu gujiska ka qayb qaatay raadintii haraagii ka haray markabkii Titanic ee ku burburay gudaha badweynta Atlanta. Sidoo kale wuxuu gujiska kaalin muuqata ka qaatay baadigoobkii diyaaraddii Malaysia ee la waayay. Sidaan waaye hawsha gujiska xilliyada nabadda. Xilliga dagaalkana waa gaadiid badeedka ugu khatarta badan isla markaana cadowga aad isaga ilaaliyaan. waxaa kaloo gujiska loo adeegsadaa in lagu galo dalxiis badda gunteeda ah, taas oo dalxiisayaasha u sahashay inay indhahooda ku arkaan duni kale oo ka qarsooneed. wuxuuna tirikoob la sameeyey sanadkii 1996 cadeeyey inay soo bateen dadka u dalxiis taga badaha guntooda ayagoo adeegsanaya gujiska, taa u fududeysay shirkadaha iskale gujisada lagu dalxiiso inay helaan xoolo badan oo u dhigma ama ka badan marar qaar lacagta ay helaan xarumaha kale ee loo dalxiis tago. waxayna shirkadaha farsameeyay gujiska bilaabeen inay soo saaraan gujisyo ku wanaagsan dhanka dalxiiska. haddaba wax yar aan dib u eego taariikhda gujiska. ma ahayn John Holland ninkii ugu horreeyay ee hindisay gujiska, ee waxaa kaga horreeyay nin Hollandays ah oo lagu magacaabi jiray Von Dribbel, ka oo sanadkii 1620 sameeyay gujis yar isla markaana ku tijaabiyay webiga Thames. wuxuuna gujiskaasi biyaha hoostooda galay 4 mitir, asigoona biyaha guntooda ku dhex socday muddo 15 saac ah. sidoo kale waxaa ninkaasi Hollandayska ku soo xigay oo welibana gujiska dagaal ku galay ciidankii khilaafadii Cuthmaaniyiinta. laakiin gujisyada casriga ah waxaa bilaabay farsameyntooda aqoonyahan John Philip Holland, ka oo sameeyay gujis casri ah. wixii intaa ka dambeeyay gujiska wuxuu ka mid noqday gaadiidka dagaalka ee ugu halista badan. wixii ka dambeeyay dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa si dhab ah loo bilaabay farsameynta gujisyada, waxayna naasiga Jarmalka farsameeyeen gujis ay u bixiyeen Bo, ka oo dhererkiisu ahaa 88 mitir halka billiciisu ahaa 8 mitir. dhowr sano kadib waxaa farsameynta gujiska bilaabay dowladda Faransiiska, waxayna Paris sanadkii 1929 soo saartay gujis ay u bixisay magaca Sorkof, ka oo in badan ka duwanaa isla markaana ka sii casrisanaa gujiskii naasiga Jarmalka. wuxuuna dhererkiisu gaarayay 120 mitir halka billiciisu ahaa 10 mitir. waxaana dhanka hore kaga rakibnaa 2 madfac. sidaas ayuu gujiska horumarintiisa ku sii socotay ilaa kolkii dambe la soo saaray gujis kala duwan isla markaana qabanaya howlo kala gedisan. haddaba waa kuma aqoonyahankii ikhtiraacay qaabkaani cusub ee ay u samaysan yihiin gujisyada. wuxuu dhashay aqoonyahankan Irelandayska ah ee John Philip Holland sanadkii 1840, wuxuuna u tahriibay sanadkii 1873 dalka Mareykanka, halkaas uu ka helay shaqo tumaalnimo ah. muddo yar kadibna wuu isaga tegay shaqadii, wuxuuna noqday macallin wax ka dhiga dugsi lagu barto diinta Kiristaanka, gaar ahaan madhabka Kaathooliga, ka oo ku yaalay wilaayada New Jersey. sanadkii xigayna wuxuu bilaabay farsameynta gujiska, wuxuuna farsamadiisa cusub u soo bandhigay ciidanka badda ee Mareykanka si ay ugu iibsadaan. laakiin madaxda ciidanka way diideen in ay John ka gataan gujiska uu farsameeyay. waxayna ku dhaheen John ma ahan gujiskan mid ka bixi kara shaqada aan rabno inuu noo qabto. John ma quusan ismana dhiibin ee wuxuu sii waday ka shaqaynta gujiska, wuxuuna bixiyay juhd iyo dadaal joogto ah oo socday muddo 20 sano ah. aakhirkiina wuxuu ku guuleystay inuu soo saaro gujis casri ah, ka oo markii lagu sameeyay tijaabooyin badan ku qanceen ciidanka badda ee Mareykanka isla markaana iibsadeen. wuxuu dhintay John Holland sanadkii 1914 oo ku beegnayd markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka. wuxuuna dunidani kaga tagay farsamada gujiska, taa oo cumrigiisii intii ugu badneed uu ku bixiyay.